kulan wacan daawada meel walba aad joogto waxaad kusoo dhawaataa janaal kale waaye films oo aad ugu barateen warbixinada ugu dambeeya ee ku saabsan arrimaha Bollywoodka. warbixintan maanta waxaan ku eegi doonaa xidiga Murqaaniga ee soo jiidashada leh hadana sameeya doorarka xumaanta ama laadarnimada ee Sonu Sood ay saameynta ku leh filmada Bollywoodka. xidigan ayaa maalmahan waxaa lagu ammaan sida uu caawiyay dadka xuduuda ku xalimna ee saameeyay cudurka coronavirus, wuxuuna dejiyay hotelkiisa si dadkaas ay u helaan meel ay degaan ama lagu quudiyo. xidigan ayaa ka hadlay sida ay hooyadiis u rabtay inuu noqdo injineer kor inta uusan noqon actor. Sonu Sood ayaa waxa uu kaloo ka hadlay in marar badan xafiisyada filmada booqday haddana aan la soo dhaweynin. haddaba aan isla aragno xidigan Sonu Sood iyo sida uu u sahlanaatay inuu noqdo xidiga uu maanta yahay. wareysi uu bixiyay ayuu arrimahaasi oo dhan kaga hadlay. waxaan ka soo jeedaa Moga, hooyadeeda waa professor waxayna riyadeed ahayd inaan noqdo injineer. waxaan noqday injineerka korontada. intaas kadib hal maalin ayaan waxaan u sheegay hooyaday inaan rabo inaan noqdo jilaa. waxaan isiisaa 1 ama 2 sano haddii aan noqdo waa okay, haddii kalena waxaan ku biirayaa ganacsiga familka. aabahay ayaa waxa uu leeyahay ganacsi dharka ah, walibna dukaan ayuu Punjab ku leeyahay. waxaana dhahay arrintaas ayaan ka howlgali doonaa. xidigan ay dhinaca kale waxa uu ka hadlay sida uu Mumbai ku soo gaaray iyo waxa uu kala kulmay. intaas kadib waxaan imaaday Mumbai waxaana bilaaway halganka nolosheeda. waxaan tagay xafiis waxaan tusayay sawirkayga si qof kale. waxaana la kulmay diidmo badan. dadka diyaar uma aha inay arkaan. waxaan garowsaday inaa igu baxday 1 sano ilaa iyo bar oo aan wadooyinka Mumbai kala bartay. Sonu Sood ayaa ka hadlay sida uu shaqada Bollywoodka ku soo galay iyo halka uu ka bilaabay. muddo kadib waxaan isku duwa ka noqday film Tamil ah taas oo ka heleen sawirkayga ina waceen. waxaan qaatay train waxaana aaday Chennai oo aan ka saxiixday filmkayga ugu horeeyay. xirfadayda jelinka waxaan ka bilaabay Tamil, Telugu, Kannada. dadka waa iga heleen wayna ugu qadariyeen shaqadeeda. Murqaaniga ayaa markaan waxa uu ka hadlay sida uu filmada Hindiya ku soo galay. waxaa la ii sheegay film Hindi ah. waxaan saxiixday filmkayga Hindiga ah ee Bharat Singh waana halkii aan ka bilaaway, laakiin kuma aanan fikirin inaan sameyn doono filmada koonfurta. laakiin tugsada dooq ma lahan. markaadan waxaysan sidee wax ku dooran kartaa? ma sameyn lahayn filmada koonfurta. qofna ma aqaanin markaan Chennai ku saxiixanay filmkayga ugu horeeyay. waxaan xasuustaa film sameeyahayga inuu soo wacay. waxaana aaday Vijay Yajni studio. waxaana tusay jirkayga anigoo fanaanad wato. wuxuuna i weydiiyey inaan fanaanada iska siibo si uu jirkayga u arko. wuxuuna dhahay jirkaaga waa okay, filmkana waa sameynaysaa. xidigan ayaa sheegay inuu shaqada ku helay duco dadka magaaladiisa ah. waxaan filaya inay ahayd ducada dadka magaaladeeda, maxaa yeelay goorta aan ka soo tagay magaaladeeda ma aqaanin fogaanta Mumbai. laakiin markaan la shaqeeyay Jackie Chan waxaan dib u eegay safarkayga waxaana soo qaaday waddo dheer, laakiin fogaanshaha safarkayga weli waa u socdaa. Sonu Sood ayaa ka hadlay hooyadiisa guulaha kadib iyo inta ay la joogtay. maya mudane, hooyadee ma nooleen. 7 sano ka hor ayay dhimatay. waxaan xasuustaa inay iskuulka igeen jirtay igana soo celin jirtay waayo isku college ayaan ahayn. waxayna ahayd macallimadeeda. waxayna ahayd qof aan nolosha wax badan kaga dayday. Sonu Sood ayaa dhashay July 3, 1973 waana 46 jir, haysta abaalmarinta Filmfare ee Best Film ama balaadarka ugu fiican. xidigan ayaa mashaariic haatan ku guda jira ee filmada Hindi ay ku koonfurtaba ah. haddaba hadii ka hesho warbixintan la wadaag asxaabtaada.